madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mishaar ahaan sanadkii meequu qaataa sidoo kale madaxda maamul goboleedyada ayagana mishaar ahaan sanadkii meeqay qaataan ma isku dhigmaanse waxa kale oo falanqeynana haduu ilaahay yiraahdo madaxda kale ee caalamka marka fiirisid mishaar ahaan sanadkii intay qaataan iyo madaxdeena sanadkii intay qaataan sidee isugu dhigmaan lacagta dawladda federaalka ee Soomaaliya soo gasho halkee ka imaataa ma gudaha dalka laga sameeyaa mise dibadda ayaa deeq ahaan looga keenaa iyo sidoo kale dawladda federaalka lacagta soo gashay ee budgetka ah sidee loogu kala qaybiyaa maamul goboleedyada waxa tusaale ahaan soo qaadanayna 6 bil ee hadda ugu dambeysay maamul goboleedyada waxa jiro aan waxba la siinin iyo sidoo kale maamul goboleedyada waxa jiro ayagana lacag lisi intaas oo dhan meesha ku falqeynayna haduu ilaa yiraahdo kulley waxaan waa public information waxa ka rabaa marka adiga hadii isleedahay information intuu ka soo helay Cowboy Google tag research soo sameey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa uu diiwaan gashan inuu qaato $250,000 sanadkii waxa lacagta ka hadlayno waa lacag laga yaabo inuu kor u dhaafayso 25,000 bishi lacag aad u fara badan waaye maamul goboleedyada ku soo haray ama madaxda kale ee hadda Soomaaliya ka jiro ayagana bal waa fiirneena aku bilaawno dhankan ka soo bilaawno waxa ka bilaaweena Jubaland iyo Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle iyo Galmudug ayaga public information website-kooda ma soo dhigaan waa website-dooda waa galay waa website caajis ah waa wax laga akhriyo ma jiro marka laakiin marka hoos u fiirisid ayaga sanadkii isku celcelis 100 ilaa 150 ilaa 170 calaamadaha maamul goboleedyadaas madaxdooda intaas ayaa soo gasho waxa ugu lacag badan marka fiirisid madaxweynayaasha maanta dalkeena ka jiro midka Somaliland iyo midka Puntland markii laga soo tago midka federaalka ah labadaas ayaga ugu yaraan $200,000 sanadkii inay qaataan ay information ka soo heli kartaa hadaa si hoos u fiirisid website-dadooda waaye aan la barbar dhigno aniga hal madaxweynaha soo qaadanayna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa isweydiinaysaa ku bilaawno tusaale ahaan madaxweynaha Mareykanka meequu qaataa sanadkii oo lacag ah mishaar ahaan meequu qaataa madaxweynaha Mareykanka $1 xitaa looguma daro $400,000 oo mishaar ah $400,000 ayuu sanadkii qaataa madaxweynaha Mareykanka ya taas xagga idhig waxa ku soo haray sida halkan uga jeedaan madaxdan intaan madaxa fiirnayna tusaale ahaan idin soo qaato haduu ilaa yiraahdo midka waxa ku bilaawnaa midka Ingiriiska ra'iisul wasaarahooda mishaar ahaan meequu qaataa Ingiriiska ra'iisul wasaarahooda mishaar ahaan sanadkii wuxuu qaataa $200,000 fiiriya madaxweynaha Soomaaliya ama jamhuuriyadda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wuxuu qaataa $250,000 midka Ingiriiska waxa u diiwaan gashan sida u jeedaan inuu qaato $200,000 inuu qaato South Africa iyo kan Ingiriiska isku lacag asagana midka South Africa sanadkii wuxuu qaataa $200,000 ayuu qaataa waxa ku soo haray midka Nigeria asagana wuxuu qaataa $100,000 ayuu qaataa Hindiya qaarkiin waa yaabi doontaan waxa laga yaabaa inay dhahdaan sax u jiraan wasaaraha Hindiya wuxuu qaataa Narendra Modi asaga waxa u diiwaan gashan $25,000 sanadkii asaga dhanba inuu qaato madaxdeena maamul goboleedyada qaar ee Soomaaliya ayaa ka lacag badan madaxweynaha dhan ee Hindiya mishaarka intuu qaato Soomaali Cowboy iska dhahay ay ugu soo ordinay soo akhri waxaan waaye qaybta dambe ugu xisaab badan marka dowladda Soomaaliya lacagta qarashka budgetka ah ee sanadka soo galo waxay gaartay 13 bilyan ay gaartay ogaada 13 bilyan waa meesha ugu hooseyso ay markii wadamada kale la barbar dhigo dalalkan madaxdeen ay ka bishaar badan yihiin dakhliga sanadlihii ee soo gala tusaale ahaan Ingiriiska iyo Mareykanka hadoo ogtiin waxa ka hadlayna waa $100 bilyan waaye lacagta marka 13 bilyan ee dawladda federaalka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya gacanteeda soo gashay inteeda badan nasiib xumo waa deeq lacageed oo saddexda qolo ee ugu balaaran ee lacagta siiso dawladda ama ummadda Soomaaliyeed waa IMF-ta iyo World Bank-ga iyo ayagana kuwan loo yaqaan African African Development Bank kuwa loo yaqaan isoo kale kuwa yar Ingiriiska lacag yar soo tuuro Mareykan lacag yar way jirtaa laakiin saddexdan dal ayaa ugu badan nasiib xumo lacag ka sameeyno xoolaha dhoofino oo yaani macquul ah hadda ma jirto laakiin waxa jirto lacag dawladda ay sameeyso
canshuurta laga qaado kambaniyada waaweyn tusaale ahaan dahabshiil iyo maxaa hormuud iyo lacag laga qaado oo canshuur ah oo dowladda soo gashaa jirto iyo sidoo kale dadka ayagana ganacsatada ah iyo guryihii hadda Soomaaliya waxaa maqlayay in lagu soo rogay lacag $25 guri walba oo maanta magaal inta dowladda ay ka taliso ku yaalo oo guri aad u fara badan ah marka lacag fara badan oo ayadana dowladda soo gashaa jirto laakiin saas ay tahay lacagtan dowladda soo gashay waxa isweydiinaysaa sidee loogu kala qaybiyaa maamul goboleedyada Soomaaliya marka sawirkan ila fiir idin hor yaalo wuxuu muujinayaa sida lacagta dowladda ee ugu kala qaybisay maamul goboleedyada Soomaaliya qarkiin waa yaabi doontaan qarkiin waa nix doontaan waxa ka hadlaynaa waa 6 bilaha waaye wax loo yaqaano January ilaa June 2024 galmudug tusaale ahaan lacagta loo balan qaaday ee la rabay in la siiyo lacagta dowladda soo gasho 13 bilyan ahayd waxa la rabay galmudug inay hesho lacag gaarayso 16 milyan oo dollar muddo 6 bil gudaheeda laakiin lacagtaas oo dhan ma wada helin oo waxa kaliya la siiyay sida ujeedaan 133,000 oo dollar ayay ka heshay dhanka dowladda sidoo kale 4 milyan oo waxay ka heshay kuwa deeq bixiyaasha ah intaas milifantay Puntland sida ujeedaan lacagta loo balan qaaday 17 milyan ayay ahayd wax dowladda lacag jeebkeeda ka baxay oo Puntland loo diray ma jirto waa zero laakiin lacagta deeq bixiyaasha caalamka oo Puntland loo diray waxay gaartay 839 ay gaartay waxa ka hadlayna waa January through June Jubbaland waa ujeedaan ayada marka meesha fiirsid ugu lacag badan inta dowladda ay jeebka ka bixisay ay siisay kuwa kale Hirshabeelle 20 yani idinka jaartigaas akhriya waxaa marka comment ku soo qortaa maxaa kaaga baxay sheekadan mishaarka madaxdeena ay qaataan iyo sidoo kale jaartigan hadda idin la shirgirey ama qaabka lacagta loogu kala qaybiyo maamul goboleedyada